ururka al-shabaab waxay sii xoojiyeen ololo ay ganacsatada magaalooyinka kaga aruurinayaan lacago kala duwan oo qaarkood ay ugu yeedheen zako kuwo kale ay ku magacaabeen maaliyad iyo lacagaha ay ka qaadaan gaadiidka maalin walba isaga kala gooshaya gobollada iyo magaalooyinka barnaamijka galka baarista waxa uu markii ugu horraysay la hadlay 3 ka mid a ganacsatada sida tooska ah al-shabaab uga qaado lacagahaas dhammaantood ganacsatadaasi waxay codsadeen inaan magacyadooda la sheegin sababo dhinaca amniga iyagoo u baqaya naftooda hase yeeshee waxay galka baarista u oggolaadeen inuu baahiyo macluumaadka ay la wadaageen lacagahan ayaa al-shabaab ay ka qaadaan ganacsatada ku sugan dhulka ay ka taliyaan iyo weliba kuwa ku sugan goobaha ay ka taliso dowladda Soomaaliya waxaa kaloo al-shabaab ay lacagahaasi ka aruuriyaan baabuurta dhex maraysa deegaanada ay ka taliyaan iyo kuwa aysan ka talinba dhammaan ganacsatada uu barnaamijkan la hadlay waxay ku sugan yihiin koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya mid ka mid a ganacsatadaasi oo aan magaciisa ku soo koobay Shabeelow oo aan hayn magaciisa dhabta ah waxa uu shidaalkaasi ka keenaa magaalada Muqdisho waxa uu geeyaa gobolada waxa uu ii sheegay in aanu jirin baabuur laga soo raro magaalada Muqdisho oo aysan al-shabaab ka qaadin lacag shixnad kasta ha sidee Shabeelow waxa uu ii sheegay in foosto kasta oo shidaal ah ay al-shabaab ka qaadaan $2 iyo badh waxaana uu intaas ku daray in lacagtaasi aysan ku qaadin bar control balse qaybtooda looga gooyo marka baabuurka laga soo rarayo suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho lacagtaasi oo lagu shubo account ay al-shabaab samaysteen ama loogu dhiibo qof ay wakiisheen ama qaab kaleba loogu diro ganacsada Shabeelow waxa uu ii sheegay in ururka al-shabaab intii isku meherad ahba ay qof u xil saareen isla markaana ay ganacsatada qayb u wacaan lacagahana ka aruursadaan haddii ay yihiin beeralayda cagafleyda gaadiidleyda shidaaleyda iyo weliba gadisleyda kale ganacsato badan ururka al-shabaab waxay ugu yeedhaan kulamo ka dhaca gobollada Shabeellada Hoose Shabeellada Dhexe Hiiraan iyo Baay meelaha ugu caansan ee kulamadaasi ay ka dhacaanna waxaa ka mid ah Gamboole Bariire Awdheegle Torotoro Buurweyn Fiidow Buurane iyo meelo kale Generaal Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare waxa uu hore u soo ahaan jiray taliyaha nabad sugidda Soomaaliya waxaan weydiiyey xeeladaha ay adeegsadaan ururka al-shabaab markii ay aruurinayaan lacagahan sideedaba nimankaani inta qoraga hayso waxa u dhiganta amba ka badan inta amba nabadoonada ah amba ganacsatada ah ama caadiga ah suuqyada ku jirta ee dadka kala taqaano oo tibinaysa qof kasta iyo wixii soo kordhay iyo wuxuu keeno iyo liis garaynta iyo marka maktabkan la yiraahdo maktabka maaliyadda ama maktabka zakawaadka kulli shacab u badan yahay shacab oo qoreen u badan yahay marka xeelada koowaad ay adeegsanayaan waa qofkiiba yaqaanaan waa u imaanayaan waxay leeyihiin waan ognahay intaas ayaa dukaankaaga intaas oo dukaan iyo intaas oo hawlabaad leedahay marka canshuurtaas laga rabaa canshuurtaas kugu soo waajibtay inaad iska bixiso qaabkaana ku bixi qof hadii uu ogaadana adiga ogeysiiyay waka halka bay marka hawshu ka bixaysaa waxa loo sii sheegaa marka in lagu handadaya haduusan intaas sameyn waxa ku dhici doona oo ilmihiisi iyo caruurtiisi iyo guriyihiisi iyo wixii marka qofkii shakhsiga ahayo oo marka suuqa jooga wuxuu kala dooranaa marka in oo wixii uu bixiyo in asiga dib soo gaaro xilligan sidii hore way ka badan tahay oo culays badan bay soo saareen ganacsatadii maxaa isbedelay maxay tahay sababtu waxaan isleeyahay ayagu markastoo ay waa ishormarinayaan hadda waxaan maqlayaa lacagii xataa inay ku badsheen ay shirkadaha ka qaadi jireen haday ahaa lahayd bangiyada haday ahaa lahayd shirkadaha caadiga ee soo degsada badeecada haday ahaa lahayd shirkadaha isgaarsiinta lacagii baada ay qaadi jireen inay badiyeen ay 3 u jibaarin ayaan maqlayaa marka taa inay ziyaado waa keenaysaa waxa kaloo keenaysaa meeshii dhaqaale ay ka abuurayaan marka mana u naxayaan dadka marka shalay waxa laga yaabaa system ahaan markii qaabkay u dhisnaayeen inay maanta qaabka horumarsan u dhisan yihiin oo ay ballaariyeen ay magaalooyin badan hadda ay ka qaadaan galka baarista waxaa sidoo kale uu waraysi la yeeshay ganacsade labaad oo aan ugu yeedhayno Muumin kaasi oo aan ahayn magaciisa dhabta ah Muumin waa ganacsade leh baabuurta shidaalka qaada waxa uu sheegay in baabuurta sida shidaalka ay u socoto gobolada laga qaado celcelis ahaan $1,300 iyadoo 800 ay tahay badeecada 500na baabuurka waxaase jira baabuur waaweyn oo laga qaado lacag intaas ka badan iyo kuwa ka yar oo laga qaado lacag gaaraya ilaa $1,000 wasiirkii hore gaashaandhigga Soomaaliya Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi ayaan weydiiyey sida uu arko xeeladaha ay al-shabaab adeegsanayaan inay ku urursadaan lacagahan iyo qaabka qasabka ah ee uga qaadayaan ganacsatada al-shabaab horta sideedaba sidaan ognahay in muddo ahba waxay lacaga iyo dhaqaalaha ay ka heli jireen ururada argagixisada al-qaa'ida oo kale ama dawlado hore oo ay taageeri jireen ama sida waxaan dhihi lahaa iyadana burcadbadeedka waxay ka mid ahayd meelaha ilaha dhaqaale ay aada uga heli jireen iyo sidoo kale dhuxusha marka waxaad moodaa meelahaasoo ay ka heli jireen oo dhan
in ay soo xirmeen ama ay ariiri badan oo dhaqaale ay soo wajahday ururka argagixisada al-shabaab. taas ayaa keenaysaa inay hadda ay maaragtay lacagihii baadka ahaa ama khasabka ay u qaadi jireen shacbiga iyo ganacsatada inay labanlaabaan ama ay kordhiyaan. waana runtii nasiib daro in maaragtay al-shabaab ay dadka hantidooda si xooga ay uga qaataan wadanka in muddo ahba runtii iyadoo ay joogaan ciidamo Soomaaliyeed iyo maaragtay ciidamo AMISOM ah. ka waran hadday ka qaadaan deegaano aysan maamulin, muqdisho kale 3 kilomitir 2 kilomitir meel u jirta madaxtooyadii, ganacsatadii suuqa bakaaraha inta telefoon loo soo diro ama meel loogu yeedho zakadii bixi ama zakaatul maal bixi ama lacag kale oo maaragtay wixii doonaan ay ka qaadaan. hadda waa istaraatiijiyada ay isticmaalaan waa argagixiso ama baqdin inay dadka ay cabsi iyo argagax ay geliyaan oo ay ku maaragtay taasina ay dadku ku khasbayso in ay madax furasho ahaan ay u bixiyaan lacagahaas oo aanay ahayn lacag ay raalli ka yihiin dadka inay bixiyaan oo ay ku taageeraan al-shabaab ama lacag ay ku faraxsan yihiin inay ku deeqaan, laakiin ay tahay lacag madax furasho ah oo naftooda iyo maalkooda ay ku badbaadinayaan. qaybta labaad ee lacagaha ay qaadaan al-shabaab waxay ku magacaabaan zako. $1,000 waxay qaadaan $25. waxa kaloo al-shabaab ay qaadaan lacaga saddexaad oo ay ku magacaabaan maaliyadda, waxaana meelaha ay ka qaadaan ka mid ah cisbitaalada, hoteelada, iskuullada iyo jaamacadaha oo ay ka qaadaan lacago kala duwan. waxaa sidoo kale lacagahan oo aan lahayn cadad sar go'an ay ka qaadaan ganacsatada, waxaana dhacda inay ganacsade ka dalbadaan inuu bixiyo lacag dhan $100,000 ama $10,000 ama $1,000 iyagoo halbeeg uga dhigaya qiyaasta ay ka haystaan ganacsigiisa ama hantidiisa. waxay leeyihiin nin hantiilo ah oo ganacsade ah ayaa tahay, shaqo ayaa lagu jiraa ee shaqada wax ku kaalmee, ayuu ii sheegay ganacsade saddexaad oo aan magaciisa ku soo koobay Maxamed. waxaana uu intaasi ku daray inaanu jirin qof ganacsade ah oo ka badbaada lacagahaasi ay aruurinayaan ururka al-shabaab. lacagahan ayaa dowladda Soomaaliya iyo ganacsataduba ay ku tilmaameen inay yihiin kuwo baad ah. haddaba intee ayuu la eg yahay guud ahaan dhaqaalaha ay al-shabaab ka qaadaan ganacsatada? Xuseen Macalin Maxamuud waxa uu hore ugu soo shaqeeyey hay-adda sirdoonka Soomaaliya ee NISA. waxaa sidoo kale uu soo noqday la taliyaha amniga ee madaxweynaha Soomaaliya. haatanna waxa uu guddoomiye ka yahay macad uu aasaasay oo lagu magacaabo Hiraal Institute oo dhowaan daabacay warbixin ku saabsan dhaqaalaha soo gala ururka al-shabaab. sanad walba sanad ka dambaysa way soo kordhaysay. 3 sano oo lasoo dhaafay waxbay soo kordhinayeen maadaama ay awoodooda fulinayd oo ama maamul oo ay meelo aysan ka tarin ay yacni dad uga qaadi karaan canshuuro ama zakooyin iyo magacyada ay u bixiyaan oo dhan yeer way soo kordhaysay. annaga reportkeenii hadda soo baxay dhowr bilood ka hor waxa uu xoogga saaray sanadkii 2017 wuxuu ahaa sanadka ugu fiican oo soo maray sanadihii lasoo dhaafay, oo waxaan estimate garaynay inta maaragtay annagu aan reportkeenu uu gaari karay ilaa inay soo saareen 27 milyan sanadkaas. ganacsada Shabeelo waxa uu ii sheegay inay jiraan qaar ka mid a ganacsatada oo macaamil la leh ururka al-shabaab, kuwaasi oo ku sugan Muqdisho iyo gobollada. ganacsade Maxamed waxa uu isna ii sheegay inay jiraan lacaga al-shabaab ay ka qaadaan beeralayda, dalaga iyo xataa cagaf-cagafyada qodaya beeraha. cagafleyda oo kale nin cagafla ah ayay la macaamilaan, lacag ayay ka qaadaan, kadibna waxay u gooyaan boono. cagaf aan haysanin boono ay gooyeen ururka al-shabaab magaalada shishadeeda beer kama qodi karto, ayuu igu yidhi ganacsade Maxamed. ganacsadahaasi waxaa kaloo uu ii sheegay in dadka iska leh baabuurta qaada xamuulka sida shidaalka ay u sheegeen ganacsatada inaysan qaadaynin shidaalkooda haddii aysan la macaamilin ururka al-shabaab, islamarkaana aysan siinin jeexooda sida uu hadalka u dhigay. waxa uu ii sheegay tusaale ahaan in qofka ganacsadaha ah ee ku sugan gobollada ay foostadii shidaalka ah ugu tegto $10, balse marka ay ka soo baxayso suuqa bakaaraha laga qaado $12 iyo badh, iyadoo $2 iyo badhka dheeraadka ah la siinayo ururka al-shabaab. waxay sheegeen gaadiidleydu in haddii taasi la waayo ay ururka al-shabaab ugu goodiyeen inay gubayaan baabuurtooda, naftooduna ay halis gelayso. waxay sheegeen ganacsatadu in ururka al-shabaab ololahan dhaqaale ururinta ah ay sii xoojiyeen 9 bilood ee u dambeysay.
lacagahan ayaa al-shabaab ay u adeegsadaan dhammaan howlgallada iyo dhaqdhaqaaqooda haddii ay tahay shidaalka gaadiidka mushaharaadka maleeshiyadooda daawooyinka cuntada iyo weliba iibsiga hubka sida ay sheegeen khubarada u dhuundaloosha hannaanka ay isku maalgeliyaan ururka al-shabaab ganacsatadu waxay kaloo barnaamijka galka baarista u sheegeen inay jiraan ganacsato ay xireen ururka al-shabaab kadib markii ay ku adkaysteen inaysan haysanin cadadka lacagta la duldhiga ee laga doonayo taasi oo ku timaada marka ururka al-shabaab ay ku adkaystaan in ganacsada leeyahay malaayiin dollar ganacsi u dhigma iyadoo laga yaabo in ganacsadahaasi aanu haysanin hantidaasi islamarkaana uusan awoodin lacagta la duldhigay qaar ka mida ganacsatada waxaa lagu xiro silsilad waxaana looga hoos tegay geed muddo saacado ah qaarkood iyagoo xiran ayaa la socodsiiyaa saacado habeen iyo maalinba leh maadaama dadka ay u xiran yihiin ay wareegayaan taasoo la xiriirta howlgalladooda ama aagbedelasho ay samaynayaan diyaaradaha droniska ah ee duulaya hawada darteed gaashaanle sare cabdulaahi cali macow waxa uu leeyahay ururka al-shabaab waxay u dhaqmayaan sidii shabakadaha maafiyada ama qowlaysatada ka macaashta awoodda ay leeyihiin ama heerka cabsigelinta ee ay ku hayaan dadka iyo shirkadaha soomaaliya waxa ay maraysaa xilligii maaragtay gangsterka ay abuurmeen oo dagaalkii labaad oo adduunka maaragtay cosa nostra iyo brigata rossi waxaasoo dhan ay abuurmeen marka heerkaas ayay maraysaa nimanka ganacsatada iyagaa bareen oo u ogolaaday maaragtay inay lacag ay siiyaan si ay naftoodii ku badbaadiyaan laakiinse khataraha ay leedahay waxa waaye lacag aad u fara badan ayay shabaab waxa ay ka qaataan ganacsatada ay ka qaataan weliba ganacsatada marnaba lama wadaagaysa hay-adaha amniga dadka baada ka qaadayo markii looga yeero muxuu ahay meelaha ay shabaabka ay joogaan torotoro iyo maaragtay iyo jirib loogu yeero way tagayaan sakawaadkii oo canshuurta keenaa laleeyahay way diibayaan ciddii ka qaaday iyo ciddii weydiisay intaba muxuu ahay lama wadaagaan hay-adaha amniga waxaa kaloo ururka al-shabaab ay adeegsadaan in qofka lacagaha ay ka qaadaan beel ahaan ay usoo aqoonsadaan kadibna ay usoo diraan dad ay isku hayb yihiin oo u sheega inay si degdega ula macaamilaan xarakada qaarkood waxaa laga soo wacaa telefoonno aysan aqoonin kuwaasi oo ku wargelinaya waxay al-shabaab ka doonayso islamarkaana siiya xilli kama dambays ah iyo meesha uu lacagtaasi ku bixin lahaa mid ka mid a ganacsatada ay lacagaha ka qaadeen ururka al-shabaab ayaa la kulma hay-adaha dowladda wax yar kadib markii uu ka soo laabtay deegaanada ay ka taliyaan ururka al-shabaab waxaana uu sharaxay duruufta uu ku jiro rasmi ahaan dowladdu waxay sheegtay inaysan ogolaanayn al-shabaab inay tallaabooyinkaasi fuliso ganacsatadana waxaa loogu baaqay inay dowladda la shaqeeyaan jenaraal cabdiraxmaan tuur yare ayaan weydiiyey in xilligii uu ahaa taliyaha nabad sugidda ay la soo xiriireen ganacsato ka cabanaya dhibaatadan waa jiraa dadku dee waa kala duwan yihiin dadka qaar baa ayaa fahmaya in lacagta uu bixinayo ay tahay lacagtii lagu xasuuqaayay shacabka laga yaabee ilmihiisa asiga lacagtii lagu xasuuqaayay oo qaraxyadan laga soo gelayay dadka qaaraa sidaa u fahamsan qaar wadaniyad u fahamsan iyo qaar diin ahaan u fahamsan oo dee waxaana dhiibayso hadhowsow dad lagu layn maayo waana ogtahay in dad lagu laynayo nimankii dadka laynaya kaa qaadaya marka dad ay damiir diineed keenay iyo mid uu damiir wadaniyeed keenay iyo mid damiir garasho keenaba waa jireen waa noo yimideen dabcan dee waxaan siinayna talooyinna waan siinaynay ganacsada muumin oo galka baadhista la hadlay ayaa sheegay inuu bixiyo dhammaan saddexda lacagood ee al-shabaab ay qaadaan maadaama uu ka mid yahay gaadiidleyda iyo ganacsatada labadaba waxa uu igu yidhi mar ganacsade ayaan ahay oo magaalada ayaan degganahay waxayna iga qaadaan lacagta ay sanadkiiba mar qaataan oo ay ku magacaabaan sakawaadka mar labaad waxaa la iga qaadaa lacagta gaadiidka u kala gooshaya gobollada maadaama aan ka mid ahay gaadiidleyda mar saddexaadna waxay iga qaadaan lacag ay u yaqaanaan maaliyadda oo inta la soo waco qofka laga qaato waxa uu ii sheegay in culays badan uu ka jiro lacagaha al-shabaabku ay ugu yeedhaan sakawaadka oo is-aamin darro weyn ay ka dhaxayso shabaabka iyo ganacsatada waxa uu ii sheegay in al-shabaab iyagu ay go'aansadaan hantida qofku uu leeyahay inta ay la-eg tahay hantidaasna ay ku saleeyaan sakada ay qaadayaan xataa haddii uusan awoodin ama hantidaasi uusan lahayn ganacsadaha uu xukunku ku dhacay dhinaca kale waxa uu ii sheegay in al-shabaab ay iyaguna ka aamin baxsan yihiin ganacsatada oo ay ka cabsi qabaan inaysan ka run sheegaynin hantida ay leeyihiin taasi waxay keentay ayuu yidhi in al-shabaab qof ay hantidiisu dhan tahay $100,000 oo dollar ay ku xukumaan inuu leeyahay hanti u dhiganta $1 milyan oo dollar ama $2 milyan oo dollar sakada ay qaadayaanna ay cadadkaas ku halbeegaan waxauu ganacsadahaasi ii sheegay in ganacsato al-shabaab ugu tegtay si ay uga dacwoodaan hantidaasi loo qiyaasay la xiray ganacsatada qaarkood waxaa la hayay 5 bilood ilaa 6 bilood kuwaasoo ugu dambayn ay ku qasabtay inay bixiyaan lacagaha la weydiistay qaarkoodna waxay adeegsadeen xeer jajab iyo odayaal si ay xorriyaddooda u helaan
dhammaan ganacsatada uu waraystay barnaamijka galka baaristu waxay ii sheegeen in qofkii diida bixinta lacagahaasi ay u badan tahay inuu naftiisa ku waayo ama ugu yaraan xorriyaddiisa ay ka qaadaan ururka al-shabaab haddiiba uu nasiib leeyahay howlgalka midowda afrika ee soomaaliya waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ee ay taageeraan ay ka taliso 80% dalka inta kalena ay ka xorayn doonaan ururka al-shabaab haddaba haddii la raaco qiyaastaasi ay bixisay amisom sidee ayay al-shabaab ugu suurto gashay inay lacaga ka qaataan dhul aysan ka talin xuseen macalin maxamuud ayaa qodobkaasi ku eegay baaritaankii uu sameeyey waxay istimaydgaraynayaan dhaqaalahaaga intii markaas iyagu ay la noqoto in ay kaa qaadi karaan ayay kugu xukumayaan xukunkaas kadib haddii aad ka dhaga adeegto waxaad u diyaar garoobaysaa in aad u tahay cadow oo kugu qasbanaanayso in aad ama aad adigu isdifaacdo ama meel maaragtay lagugu difaaci kara aad joogto iyo in aad sida ay kugu amreen in aad iska bixiso marka waxay ciqaabtoodu waa dil sababtaas ayay dadka badankiisa ama kulligoodba hala yidhaahdo aysan ugu dhiiran karin qof uusan garanayn meel uga imaan doono ma masaajidku ku dili doonaa ma ganacsigiisu ku dhex dili doonaa ma jaamacaddu dhiganayo ku dhex dili doonaa qof uusan garanaynin in uusan maaragtay iska difaaci karin sidaas ayay ugu suura gashaa marka inay lacago aan xad lahayn ka aruursadaan meelo aysan ayagu ka talin ganacsatadu waxay kaloo ii sheegeen in dilal iyo weeraro dhacay sanadkii hore iyo sanadkanba loo geystay xubno ka tirsan ganacsatada oo diiday inay bixiyaan lacagahaasi haddaba xalku muxuu yahay taliyii hore nabad sugidda jenaraal cabdiraxmaan maxamed tuuryare ayaan weydiiyey tallaabooyin kale oo ay qaadi karaan hay-adaha amniga ee dowladda si loo joojiyo ama loo carqaladeeyo dhaqaale urursiga ururka al-shabaab dhaqaalahaasi oo laga yaabo in lagu bixiyo samaynta qaraxyada ay toddobaad walba ku dhintaan 10 qof ama tababarka iyo tashkiilinta la siinayo carruurta da'da yar ee ay askaraynayaan ururka al-shabaab ugu dambaynna ay ku qancinayaan inay isqarxiyaan iyadoo ay dhici karto in qaar ka mid a carruurtaasi ay dhaleen ganacsatada laga aruuriyey canshuuraha sharci darrada ah amnigu marka la sugayo wuxuu u baahan yahay in kaabayaal u baahan yahay waa in wadankii system ka jiro waa in daata inay jirto waayo dadkii daata leeyihiin waa in qofku markuu subax kan soo tooso macaamilaadkiisa amba waxa dhan oo shaqada dhan u qabsanayo ay meel kaar laga weydiinayo ay jirto markuu xawaalo tegaayo oo lacag qaadanayo la weydiiyo ID card markuu kaar qaadanayo ID card la weydiiyo oo aqoonsi la weydiiyo markuu bas raacayo la weydiiyo maxaan ku oraa mararka qaar adduunka kala daatay leeyihiin daatadaas la gelinaa qofka falkan sameeyay waa la ogaanaa marka sidaasaa loo dabageli karaa qofka marka problemka guud baa jira waxaa kale oo la soo jeediyey diiwaangelin loo sameeyo lambarrada telefoonnada iyo aqoonsiga dadka ay ku qoran yihiin tallaabadaasi ha inoo sharaxo jenaraal cabdiraxmaan maxamed tuuryare mushkiladda kaloo jirta waxaa waaye nidaam kaste markuu yimaado howlaha u yaallaa ka badan markii uu fadhiyo adigu dhowr sanad iyo wax lamid a amba 2 sano ayadoo ay ka dhiman tahay daaramkiisiiba uu cilladii ogaanaa cilladii markii la ogaadana intii xal loo helaayo oo xal ha loo helo cilladda hal maalin xal looguma heli kare baa waqtiga ka dhamaanayaa sidaabuu ku baxaya waxaan ogahay xilligii sheekh shariif waa la isku dayey xilligii uu madaxweyne xasan sheekh yimid ayadana hawshaas waa la isku dayo waxaa la socotaa gudoomiyihii gobolka waagaa tarsan inuu bilaabo national aid oo baarlamaankii waagaa jooga baa joojiyey cabasho badan markii malaha ka soo gaaray maxaa yeele looma diyaarsanayn ayadoo sidaa u socoto oo dee wixii la leeyahay see loo badiyaa unbaa haddana nidaamkii waagaa jiray waqtigiisii gabagaba noqday marka dowladahan degdega isku bedela oo markii dee madaxweynuhu isbedelo ayadana wixii ka hooseeya oo dhan isbedela waa caqabadaha kale waay simkaadhada telefoonada maxaa loo diiwaan gelin waaya ma la diiwaan gelin karaa simikaadhka waa la diiwaan geli karaa waxaa ka horreysa laakiin inkastoo caqabado ay jiraan oo sidaa aan kuu sheegay waxaan maadaama marka horeba aan system lagu samayn oo meel aan nidaam ka jirin ay yimideen teknolojiyada telefoonada yimideen ayaguna un baahidii marka ay dabooleen haddana waa la sixi karaa waa in sharci laga soo saaro sharci gaara laga soo saaro amba laga soo saaro go'aan dawladeed laga soo saaro dawladda markaa jirtana saan kuu sheego hawshu waa hawl sanado u baahan markii hawshii bilowdo waxaa laga yaabaa intay fahmaysana waqti bay ku qaadaneen markay fahantana waqti ma haysato marka shaloon tabar haayana tala ma hayn maantoon tala haayana tabar ma haayaan mar kaste wax ku halaabayaan qaar ka mid ah saraakiisha amnigu waxay aaminsan yihiin in ganacsatadu ay iska dhaga tiraan hanjabaadda ururka al-shabaab ayna wada shaqayn la sameeyaan dowladda Soomaaliya marka ay soo wacaan shabakadaha ama shakhsiyaadka ka doonaya lacagaha baadda ah ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa al-shabaab ka saaray magaalada Muqdisho sanadkii 2011 sanadihii ku xigayna waxa al-shabaab laga qabsaday magaalooyin badan oo ay ku jiraan kuwa muhiim u ahaa maaliyadooda iyo dakhliga soo gala
sida Kismaayo iyo Baraawe. Al-shabaab waxay ku sugan yihiin meelo ka mid ah dhulka baadiyaha ah iyo magaalooyin kooban oo aan lahayn dhaqaale badan. Mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya ee xilliganna waxay sheegeen inay dhisayaan ciidamo mas'uuliyadda amniga kala wareega kuwa AMISOM, isla markaana awoodda dawladda ku fidiya gobollada dalka oo dhan. Su'aashuse waxay tahay goorma ayaa dawladda Soomaaliya oo taageero ka helaysa ciidamada AMISOM ay ku guulaysan doontaa inay joojiso ama ugu yaraan carqaladayso lacagaha baadda ah ee laga qaadayo ganacsatada iyo awoodda iyo amarada ururka Al-shabaab ee sida tooska ah uga hirgala magaalooyin aysan gacanta ku hayn.